kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo sharafta mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo xilli walba oo idiin tahayba waqtiga ha idiin wacnaado waayahan ha idiin samaado waa walaalkiin oo idin leh mar kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin daawashada iyo kamid ahaanshiyaha janalka inta waan idinkaga mahad celinaya sharafaha idiin sugnaato meel walba oo aad ku sugan tihiin waxaan rajeynayaa farxad reen bashbash iyo barwaaqo inaad ku sugan tahay haddii uu janalka subscribe ku ahayn subscribe gareyso muuqaalka like gareysta shiina share gareeyo meel dheer inoo gaarsiiyo waad mahadsantihiin oo waad mahadsantihiin maanta muuqaalkeena waxaan rajeynayaa inuu noqon doono muuqaal runtii aan doonayo dad badan inaan qalbiyadooda waxa ku jiro inuu ka hadalno muuqaalkani inaan ka hadlaa waxa igu dhaliyay ayaa waxa ay tahay dad badani waxa ay aaminsan yihiin inaysan jirin ayaan idiin sheegayaa oo maanta wax ka duwan ayaanu arki doonaa mursal muuse ayaana markaa inooga marqaati kici doono dad badanayse waxay rajeynayaa ama ku sugan wadamadaas hadda Yurubka Mareykan meelaha in ay markaa og yihiin xaqaa'iqda dhabta ah ee jirto markii laga reebo hal shay oo la isku raacsan yahay shaygaas inuu ka duwan yahay ninka mursal ahaa waxa uu markaani ka soo baxay waa yacni ilaa iska waqtiyada maalin iyadoo tahay ayuu aroos ka soo tumay isaga iyo xaajiyadiisa bashbash iyo barwaaqo ayay markaasi ku sugan yihiin waxa ayna markaa isaga oo tamashleynayo wadadana socdo waxa markaa muuqaalkiisan oo la jecelaystay inuu nolo wadaago ayaa wax ku jiraan doonayaa bal inaan daaha kaaga qaado muuqaalka waa kanay daawasho wacan maalin cad aroos la tumay Mareykan ugu kaale markiisa dahabinkum bal tumi jiray moogta laakiin marka dhulka soo iftiina lagu kala baxaya xafladda sidayd wada aragteenba waxa uu inoo sheegay in arooskani uu ka yimid oo Mareykanka ah keligii uusan ahayn ee aroosyada dhan ee dalka Mareykanka ka dhaco ay maalin dhacaan halka Hargeysa iyo meelaha kale ee Soomaalida ay degaan aroosyada markaasi ka dhaca ay yihiin kuwa habeen dhaco waxay farqiga u dhaxeeyo markaasina uu doonayo in uu wax inaga tusiya maxay kula tahay haddaba inta aadan taa ku fikirin ka hor aniga ayaa kuu sheegi doono sababta isbedelka ah ee markaasi uu sidaasi ay u jirto xaqiiqada haddii aad aaminayso iyo haddii aadan aaminaynba waa mid markaasi jeclahay inaan kula wadaago ma aaminaysaa haddii aan ku idhaahdo Mareykanka amniga ka taagan waxaa ka wanaagsan dhulalka ay Soomaalida degaan amniyada la haysto rooska in waaga uu baryay laga soo baxaa waxa ay marqaati cad ka tahay in ay dadka haystaan nabad ilaahay ziyaadaha uga dhigay Mareykanka dhexdiisa dilalka ka dhacaan kama dhacaan caalamka kale ee markaasi looga cabsado amaba xarbiga uu ka jiro ay nabadii aysan ka jirin kama dhacaan waxyaabaha Mareykanka ka dhaco oo waxyaabaha qaar dilalka oo kale si caadi ah ayay ka yihiin wadamada Mareykanka amaba wadamadan kale ee Europeanka marka taa ayaa waxay keenaysaa ilaa iyo waa berigii anaga inaan joogno aroosyadani halka iyaga aysan awood u lahayn in ay habeenkii saqbarkii ay socdaan qof walba oo jooga weydiin kartaa ana ha igu simin ana ha igu markaa qaadan hadalkayga laakiin wax walba oo aad maqashaa waa la baaraa oo baaritaan ayaa lagu sameeyaa soo baar soona ogow maxaa kalifay in aroosyada maalintii la qabto anagu og in ay markaasi dadka maalintii ay shaqeeyaan sida darteedna shaqada ay maalintii qabanayaan habeenkii ay jaanis heli karaan ama ay xaflado ku tagaan ama ay ku tagaan markaa meelaha kale ee aroosyada oo kaleeto ama meel walba uu tagayo inay tagaan way awoodi karaan laakiin maxay tahay sababta dhabta ah ee ka dambeyso wataa waana soo ogaan kartiin waana soo baari doontaan halka kale aa usoo laabto waxaynu ogeen in markaasi barnaamij uu socday oo habeen isku dabarid markaasi koox cusub in lagu dhawaaqo Mareykanka si ay u sameeyaan wax ka badan waxa ay hadda haystaan nacam waxa kala jeedaa arrin ka badan sida tusaale ahaan in ay sameeyaan yacni koox markii ay noqdaan waxay abuuri karaan in ay kasbadaan qoloobyo badan mursal iyo xaajiyadiisa kaliya in ay wax qabtaan waxa kaga wanaagsan ama markaas boqol kaga wanaagsan in dad badani loo helo oo markaasi ay noqdaan arrinkooda mid yacni markaasi wax badan bedela ama wax badan dhaliya qof walba taageerihiisa iyo howlihiisa kale gaarka ah markaa waa uu haystaa sidaas darteedna waxa ay markaasi awoodi karaan in ay sameeyaan wax ka badan waxa ay markaasi sameynayaan waana lagu rajo weyn yahay waana markaa way dhici doontaa waa arki doontiin horta dad yooga qaar ayaa cagajiid ka wada kooxda dhinaca looga dhawaaqayo xidigaha
dad ka mid ah dadka fanaaniinta reer maraykan ayaa waxa ay ka wadaan cagajiid oo markaa aanan raalli ka ahayn, iyagoo markaa jecel in ay kaligood iska ahaadaan, wax walba oo barnaamij ay qabsanayaanna ay si keliya ku qabsadaan, oo ay taa uga faa'iido badan tahay in ay markaasi jamac noqdaan ama ay dad badani ku noqdaan ama kooxda ay ka mid noqdaan. Way ka cagajiidayaan walow ay ku dhadhow yihiin, laakiin qaarkood badan oo magacyo leh in ay ku dhowaadaan maaha inay ka mid noqdaan kooxda, oo waad arki doontaan haddii ilaahay idmo. midda kaleet waxaa la yaaba muuqaalka markay arkaya gudihiisa dad ayaa ka hadlayay oo yacni komatiga xaggiisa ayaa kala jeedaa waxa ay markaasi sheegayeen ama ay sameynayeen. anu la yaabay igu noqotay iyo tacajab, sababtoo ah waxay weydiiyeen horta waxaa dhibka keenayo anaga waxaan aragna ayaan xukminaa, aragtida ugu horeyso waxa ay indheheena qabtaan ayaan xukminaa, oo uma sii eegno oo ma sii baarno waxaan wixii ka jiro, waxyaabaha kalifay iyo sababta markaasi qofkan. wax walba oo aan aragno horey xugun ayaan kaga dhufanaa, ama ha noqdo mid aan ku guuleysano ama ha noqdo mid aan ku guuldareysano. uma eegno ma guuleysan doonaa mana guuldareysan doonaa, keliya waxaan eegnaa oo aan ku niidsannahay in aynu helno amaba aan sameyno in aan arrinkaasi uu socdo oo keliya. waa in uu socdaa, waa inuu socdaa, anaga halkaas ayay inagaga dhan tahay, laakiin ma sii eegno maxay noqon doontaa, muxuu arrinkaasi yahay. waxaa arkaya iyagoo dhahayaan maanta lamaba arkayo hodan cabdiraxmaane maxaa dhacay, ma khilaafaa jiro. xitaa haddii muuqaalada ay dib u raacaan ama muuqaaladiis gudaha usii galaan waxay arki lahaayeen hodan cabdiraxmaan oo ka mid ahaa dadkii markaasi meesha la joogay misena kala qayb qaadanayay. marka arooskaasi wuu ahaaday, way wada joogeen labadan lamaanana mar walba farxad ayay markaa u rajeynaynaa, wayna ku nool yihiinba. waa laba mataano ah oo mataanaha jacaylka ah oo runtii waqti dheer iyo waaye adagba isla soo maray, isla soo rafaaday, isla soo jabay, darbiyaa la iskaga soo booday oo ilaa iyo waqti iyo waayaa la soo geliyey, wadamo badanaa loo soo jeexay sidii laysku soo gaari lahaa. marka si kastoo ay markaa wax u sameeyaan ama ay isugu dayaan ma gaari karaan dadkeen. laakiin la yaab, dadka qaar ayaa la yaab leh, sababtoo ah wax walba ma hubsanayaan, ma isweydiinayaan, waxa ay markaasi rabaan ayay naga dhaadhicinayaan ama ay nala hor imaanayaan si aan anagana u qaadano, iyadoo maanta aan ognahay adduunkiina hormaray oo waxyaabo badan la heli karo. waqti waxaa jirtay muuqaalka keliya ee la helo runtiisa iyo beentiisa aan la kala saari karayn, oo markaa ku qasbanaan jirnay inaan rumaysano markii muuqaalka aan aragno, kadibna aan dib ka ogaan jirnay inay waxaaba been yihiin ama aysan ahayn wax jiraba. laakiin hadda waa la ilbaxay, waa la ogaan karaa, waa la fahmi karaa, wax walbana waxaa laga fahmi karaa habka ay wax u dhacayaan. haddii aad raadisana waxaad heli kartaa xog intaas kasii badan oo markaa aad ku qanci karaysid. sidaas darteed maanta waxaan idin leeyahay looma baahna, loomana baahan doono in markaasi la sameeyo waxyaabaha qaar markaa dadkana been laga iibiyo. guuleysta ayaan leeyahay lamaanahan. waxaana ogaataa mursalow farqiga u dhexeeya waxay tahay inaan ka amni badan nahay wadamada aad joogtaan inta badan, yacni inaan ka amni badan nahay maadaama gaangis badan aad leedihiin anagana aynan lahayn. hadalkayga mawduuciisii gundhigiisa halkaas ayuu ahaa. aad baad u mahadsan tahay haddii aad halkan samaqabna ugula soo gaartay, waad ku mahadsan tahay. muuqaalka noo like garee, siina sheer garee oo markaa dad badan si ay u dareemaan neecawda iyo jawiga degan ee aan haysano. aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leeyahay guuleysta meel walba ood adduunka kaga sugantihiina farxad ku noolaada. muuqaalkaani mid xigo ama ka duwan intaan ku kulmi doonana dhammaan waxaan idinkaga sii tegayaa nooli kulante.